كل ما أنت وعدي أما أقونا يسكر دينه لكن واحد يسكت يدرس كلامه قصة صنع ضدك وحيقانا سيدتك وحوش يجل هاي أما سيدي أدو تحضيرين لهاي درس أما أدو تشيدين كاري لهاي سيكالا مركا عن تلمامو حنو مالينا يرقى هالكا فرديا انتو دوغو بدانين مان أفرشان لحتو دوا كتاب صومر سنينو يريه هدنا ولا مسيئونو حلالي رمضان تشيخ مينو إيمانيا وانا نقرن الله الشيخ كلي ولي لسوغيو marka xagee wax ka qaban la yimays weydiinta leh la dig oo Soomaaliya lagu soo dhigay oo halkan lagu dhigay oo TV laga dhigaysay oo wuxuu ku wada duubay maxaa la yiraahdaa internetka kutubti way ku jirtaa waa kan sidee wax yihiin markaas ama maxaa wax loo jeedin kari waay marka waxaan isku dayayaa hadii Allah yiraahdo subhanahu wa ta'ala inaan laba mas'alo qura tilmaamo مسألة وحسوسنا عندنا حسوسنا يوم مناهجتي سكولة ده جامعات كواحد كل جيت شرتنا أها and how to prepare a lecture أما thesis كتير جامعات كأرض جالورين شراء وقر أما حتى عوض النظر أرض اسكندري كتير سيدا لدا project تصاقر كاسو منو تجابين إنه كنت تجابين إنه مركز الكتاب والسنة يعني كأول بين تبادل رجع schooling system كوي يقاني وحيا هيت كهذا براتين oo waxoogaa kutubana leedin akhriyayna hore u dheeraysaan way xirtu waxa qodhay dib haysatay waxay hayd kaas baan ay aqoonin marka intii sheekhu mariyay iyo kitaabkii uu akhriyay iyo sidii uu la qabayay inuu qaybo ama se uu fahmo oo isna sideedii ugu celiyo mooyane initiative kale ma haynin qaab kale uu soo bandhiga ma jirin asbaabo kalena iyagoo laga yaabo inay sii raaciyeen oo ama kutubta la haysto ama buugaagta taale ama waxa uu qofkani maraajicdu helay inta la kaday dhamaanteed yaray guud ahaan haddaan dib ugu noqdo masaladaasi waxaynu ogsoonay oo waga ardada wada haydeen loo oran jiray inaad wax qortaa ama subject aad diyaarisaa afar shay bay u baahan tahay bay oran jireen koow waxa u baahan tahay baa la yiraahdaa inaad topic hesho waana masaa'isha ardadaba ugu adag baa la yiraahdaa topic kan aad wax ka qorayso sida aad u xadidi lahayd ee u fahmi lahayd oo maskaxdaada ugu ballaaran lahaa waa shay runtii aan fududayn waxay yiraahdaan qoladan waxay eegaysaana waa getting birds ay bay yiraahdaan shimbirtii duulaysay intay wax ka arkaysay waa inaad eegataa bay yiraahdaan wixii idan waxa laga yaabaa ninka marka la yiraahdo masaajidkaad wax ka dhigaysa ama soo diyaar garow daris baad dhigaysaa inuu yiraahdo warta waxaad ka bilaabi doontaa maxaad maanta akhridaa hadduu maanta dari soo helo inuu bariba soo waayo cinwaan labaad oo sheego topiga markaad hayso waxa labaad la baadi doona waxay yiraahdaan waa locate relevant information topiga aad dooratay information kii ku saabsanaa isaga ku xidhnaa inaad locate gareyn karto meeshii aad ka heli lahayd meesha aad ka helaysaa ama wax print oo la daabacay ha noqdo buugaag iyo kutub ha noqdo ama electronic ha noqdo waxaan imika cajaladahan iyo CD-yadan iyo waxaan yarara tirada badan la ku jira ama through internet databases ba ha noqdo oo searching engines ka aad ku raadinayso meesha doonaysa aad ka raadisida inaad locate gareyn karto cinwaankan aad rabto inaad akhrido meeshii aad ugu laaban lahayd ama maraajicda aad ugu noqon kari lahayd inaad yana garanayso waxay yiraahdaan waa surveying the territory carabiga ka jilicsan be ya shayga koowaad waxa weeyaan inaad cinwaan hesho cinwaan dars inaad marka koowaad heli karto shayga labaadna waxa weeyaan inaad heli karto maraajicdii ama meeshii aad ugu noqon lahayd ee aad ka baari lahayd dariska kan موضوع أنا ضربت إن تشيدسه إن تصوري كرته وحي علماء دورين شرين مذان البحث يعني بحث كانت رادين يسمى لها أو إن لافي ليا إن يوحكا أدوحكيها لي كرته إن صمين كرته قيبتي تصدحات وحي دهدان وanalyzing the issue أما التحليل وحي أتصور الشيء إن تحللي كرته oo aad abwaab iyo canaawiin iyo qaab aad soo dhinac dhigi karto ka afraad waxay yiraahdaan argumentkaagu
أما ضد هذا إن organize كرين كرتو أما وحاء ربطه إن سياق الصبين كرتو إن تحي كرتو وماش أتكبل هذا السقاب كادو وضع حاجة كل ما ينسى إن تحي ذات الصبين يسو أفرت شيء هدات كقولي ستبعد هذا عنوان كستا أما درس كستا أفرت شيء مركو ركو قولي ستو ودرس هذا ما يسترسو مركو كوادا طبقة كيف كريسو طبق إن هذا شو وحلا الصعداء قابك طبقاتي وتحليلين نوتا أما وبروسس كرين كرتين دين بدن كيف كريسو مثلا مسجد التوفيق والقولي وحكا صغر سايد كانوا شغرا ليرو وحكا صغر واحد هذا ما واحد قريسه as a report mise waxaad u qoraysaa as an issue analyze mise waxaad u qoraysaa as an advocacy saddexda shay waxay ku kala tilmaamaan ma waxaad qoraysaa report ku saabsiisan ee masaajidkan iyo taariikhdiisa iyo reportka cid gaar ah la siiyo ama dad gaar mesela cid aan garanayn baa timi ama hay'ad carbeed baynu wax weydiinaynaa ama dawlad carbeed baynu wax ka rabnaa ama dawladda bayna tiri waxa uu masaajidku ka warrama waxaynu report baynu qoraynaa ku saabsan masaajidkeena magaciisa taariikhdiisa dadka ka memberka ah waxa uu qabto shaqooyinku qabto inta saacadada uu furay waa just reportkaasi wuxuu ku saabsan yahay inta ugu badan la to inform inaad cid wargaarsiin karto aad u gudbin karto hadduu aanu ka ahayn wuxuu kaloo noqon karaa bay dhahayn issue analyze macnaheedu waxa weeyaan inaad evaluation ku samaynayso masjid tawfiiq baynu لأنه محو وناق ليه محو حماليه محا نقصان كتيرا وينو evaluate قريننا وينو تقييميننا تقييم بينو كساميننا محي مساجد كي مركا وحينو قرينا محاسين تيس وحايا وحا سوليه وحايا وحا سوقبطا وحايا وحا سوقبطا وحايا وحا دانتنا وحينو كلو قرينا مساوي دي سيا عيبهيس وحا سكوليتا وحا سكوليتا وحا سكوليتا وحا سكوليتا سببيننا inuu waxan kulliita waxa keenay waxa hadii la rabo markaan wax laga qabto waa inta hay'ata wax laga qabtaa inuu waxan kale kulliita waxa keenay waxa hadii la rabto waa waxa laga qabtaa idan waa taqyiim waa shay aad qiimeynayso midina ka saddexaad waxay dhahdaa waa nooc min inaad difaaciso una doodayso oo waxa midalan masaajida la maago dawladda iyo jaraa'idka iyo waxa kan baa idin maagay report baan masaajidka qoraysaa laakiin waxaad u qoraysaa qaab argumenta inaad difaacdo mid waliba waxa ay keensanaysaa qaabka aad wax u qorayso ama aad wax u diyaarinayso ama wax u jeedinayso waa fikradda koowaad aad marka hore ka haysato topic-gan aad rabto inaad wax ka qorto waxaad uga jeedo marka soo dhaafno ka waxaynu u baahannahay cinwaanka haddaad hesho inaad heli karto maadadii cinwaankan ku saabsanayd meesha aad ugu noqonaysay ama buuga ka noqoto ama waxay doonto ha noqoto waxa laga yaabaa madaanul xadiis ama madaanul bahth waxay dhahdaan wax fudud maaha inaad suurayn kartaa in badanna waxay u baahan tahay inaad waxaan experience u leedahay mesela qaad baa la yiri wax ka soo qora qaad ayaa lagu yiri wax ka soo qor had fikirto waxa tiri oo kitaab talow laba saddex kitaab baad soo hesho qaad wax ka tilmaamaya laakiin waxa isweydiin la qaad xageeba wax lagaga qora waxaad ka fikirtaa kow narcotics iyo cidda wax ka qortay ama United Nations noqdo ama dawladda ha noqdo ama waxa tan noqdo hay'adkooda narcotiga iyo meelaha narcotiga waxa lagu qoriyo waxa waa madaan aad u fikiri kartaa inaad ka baadi doonto qaad waxaad raadin kartaa qoladan pharmacology-ga iyo dawooyinka iyo dhirta wax lagu daweeyo iyo dhirta sunta iyo dhirta aan sunta ahayn iyo waxa ka warrama waa madaan kale oo aad cilmigaasi ka dhaxbaadi doonayso oo aad ka raadin karto waxaad ka raadin kartaa intaad fikirto culture-ka ummadaha marka laga warramayo waxa laga yaabaa East Africa oo dhan culture-keeda iyo dhaqankeeda Yemen laga warramo inaan qaad ka baxaynin marka cid kasto dhaqanka Yemeneed iyo taariikhdeeda iyo wax ka warratay waxaad ka garanaysaa qaad inuu meel uu kaga jiro aanu ka baxsanayn waa madaan kale aad ka soo heli karto waxa laga yaabaa inaad ka heli karto madaan ku saabsan dhaqaale iyo wax la nooca waayo wadanu yahay wax soo saarka ugu tirada badan leh oo ka soo saaro idan waxa meeshaad ugu noqonayso marjicu waa meel runtii u baahan inaad maskaxdaadu ballaaran tahay oo si ballaaran aad wax u eegi karto si aad u garan karto information kaasi meesha aad ka raadinaysaa meesha ay tahay waxa kale oo inta yara khusaysa وجنرال ثيوريز كيبان ولت المامية انت ان تجن كتاب يا سنة وحا انت الراعدة
waxay yidhaahdaan assignmentkaasi aad wax ka qorayso inaad uga fakerto isaga kow audiencekiisa dadka ku dhegaysanaya hadhow wax aad u sheegayso iyo danta laga leeyahay saddexdan shay waxay xukumaan waxa aad jeedinayso ama waxa aad qoraysaa siduu yahay maalan purpose-ka danta laga leeyahay qoraalkan dantaad ka leedahay ma waxa weeyaan ma inaad tala bixin bixisaaba dantaad ka leedahay ma inaad information bixisaaba dantaad ka leedahay ma inaad wax taqyiimiso evaluation samaysaaba dantaad ka leedahay ma wixii laga sheego inaad summarize garayso oo summary kooban ka dhiibtaaba purpose-kaagu inuu cad yahay maxaa dariskan u jeedinaysaa muxuu yahay hadafka aad ka leedahay inaad dariskan jeediso ka labaad audience-kaagu haddaad dad academica jaamacadda haddaad lecture ka jeedinayso iyo islaamaheennan malcamadaha inoo dhigtaiyo meelaha kan haddaad la hadlayso iyo caruurta yaryar ee malcamada qur-aanka dhigataiyo haddaad la hadlayso isku audience ma tihid isku dad ma haysatid isku dad ma haysatid markaan leeyahay waxa weeyaan qofku waxa uu jeedinayo wuxuu ku xisaabtamaa qofkan uu wax u jeedinayo kunskaabka ama aqoonta uu leeyahay wax ku dul binaysanaya aqoontiisa adoo ictimaadayad waxaad rabtay dul saaraysa laakiin audience-kaagu markaa dad academic oo xadkaa gaadhsiisan hadday yihiin aqoontay sidaan meel bay kuu joogtaa marka halkaasaad kaga dul binaynaysa haddaad caruur yaryar yihiin aqoontoodu meel bay kuugu xadaysantahay halkaasaad ku dul binaysanaysaa waxaa la mid a had iyo goor diinta iyo meelahan waxaa la sheegaa dad isku jiraba waa nidaamkan nimanka siyaasiyiintiisa ay u hadlaan oo kale siyaasiyiinta waxoodu lagama hadlo waxa deeply scientificala wax walba waa la dul maraa waa la soo wadaa waa iska daris caama ma ku yahay waayo dadkan aad rabto inaad wax ka dhaadhicisaa waxay isugu jiraan mid wax garanaya oo meel fog wax ka eegaya mid aanay uba bilownayn hadda soo galay khudbad jimci markaad jeedinayso jamaacadda muslim oo dhan baa ku hor fadhiya idan kunskaabka dadka aad ka rajaynayso inay sidaan waa inay dad muslimiin oo soo salaad tagay yihiin dad muslimiin oo soo salaad tagay inay yihiin idan way ka gadisantay haddaad lecture jaamacadeed jeedinayso ama lecture school aad jeedinayso way ka gadisantay saa daraaddeed qofka iyo aqoonta uu leeyay iyo weliba bay yidhaahdaan dharfiga aad wax jeedinayso yacni dharfigu maalan waxaan ka warramayaa muslimiinta iyo sida loo cadaadiyo waa kan laakiin hadduu ku beegmo dariskaygaasi wakti xalay soo daawateen abu qurayb iyo wixii ka dhacay oo dabeetana saakaan tidhaahdo muxaadaro jeedi ku saabsan waxaan ogay maskaxdiinu inay meelii taagan tahay sida loo cadaadiyo suuraddaasoo dhan waa haysataan markaa suwar kale kuwaa la noocun inaad dhinac dhiga mooyaane in muslim la cadaadiyo in la cadaan ka wada hadli mayno waayo xaaladda markaa la joogo laakiin dariskaan waktigaa jeediye wakti aan abu quraybka iyo waxaasi jirin haddaan jeediyo waxa laga yaba inaan dadkuba si fiican u fahmeyn waayo waxaa kala gedisan wixii aan ku dulbineeyey mar walba iyo aqoontii ay haysan iyo informationka ay haysateen baa kala gedisan intaa waxa dheer oo ugu dambeeya styleka ama tuunka aad wax u jeedinayso oo inuu shay iska informala yahay oo aan waxba loo raacin wixii maskaxdaada kusoo dhacun aad iska sheegaysaa inuu qaab scholar yahay oo hadduu scholar noqdo yacni eray bixina inaad samayso luqada waxay ku tay sharaxdo terminologyga waxay ku tay sharaxdo maraajicdaada oo dhan wax kastoo soo qaadatay marjiciisa inaad ku qorto yacni qaab scholar inaad wax u qorayso inuu dramatization iskaba yahay oo laga yaabo qaab aad caruur yaryar wax isaga dhigayso dhanna aqoon baad rabtaa inaad ka siiso dhanna inay madadaashaan oo aanay kugu caajisin oo ay qosqoslaan baad rabtaa wuu ka gedisay nooc min drama oo kale baa laga yaabaa inaad warkaaga oo dhan u wado aqoon waad u kordhinaysaa waxaad kaloo rabtaa inaanay caajisin ay meesha iska joogaan laakiin haddaad muxaadaro qiyaama ka warramaysa ku lagaama rabo dee inaad dadka qosqoslisay ila qiyaamo iyo dhimasho iyo baad ka warramaysaa naar iyo maaha meel uu yaallo dramatizing meel ay taallo maaha idan waxay ku xidhan tahay sida waxa aad u jeedinayso waxaan isku dayayaa markaa general knowledge aan tilmaamnay oo ah inihii iskuullada iyo jaamacaadka iyo meelahaasi lagu dhigan jiray bal inaynu isku dayno inaynu ku dabiqi karno daris diiniya marka aad rabto inaad jeediso waxa aan nadka ka soo saaray mid noocaas oo kale ku saabsan oo doctor cali baadaxdaax uu qoray oo u bixiya siraaj almuniir fi fanni taxdiir wuxuu qaybiyey daraskiisa saddexdii qaybood kow ikhtiyaari almawduuc
وطبقين تشو لبا إعداد مادة الموضوع oo inaad locate karto maadadu meesha ay ku jirtay ثالثا oo labadii kale oo israaciyaan analyzing-kii iyo saad isugu xidhxidhi lahayd waxaaga organizing-kii oo uu bixiyay markaa الربط بين هذه الموضوعات مواضيع ama aqoomaha soo urursiye cilmigaas sidii aad u taxi lahayd aad meel isugu wada geyn lahayd wuxuu leeyahay dictorku موضوع in la doortaa buu yiri waxyaabo ugu adag waliba buu yiri ninka wax dhiga waliba laga yaabo buu yiri usbuuc kasta ama maalin kasta inuu wax dhigayo mesela hadaad khatiib jimco oo qura tahay buu leeyahay waxa ku sugaya sanad kasta 52 khudbadood inaad jeediso jimce marka laga yimaado khudubka ciidaha iyo munaasabaadka kale iyo waxa soo dhan marka laga yimaado waxa ku sugaya inaad jeediso maxay 52 mawduuc 52 mawduuc inaad diyaariso oo haddana haday mukarrar noqdaan waxa laga yaabaa dadku inuu xiqo bariga dambe la yiraahdo bisha waa imsaata waa muxaadarada nooca ahayd maanta ta ku beeganay hadii uu de qofku masaajidka uu ka yahay qof joogta ah waa sababta laga yaabo kutubtii yarayda casayda ee wadaadadeennu akhriyi jireen markuu kugu dul akhriyo waad ka sii garanaysaa berritana deeta ku beegan waayo munaasabadaystay ama bishaystay ama waxa markaa sii fahamto waxaad garanaysaa berrina deriska la akhrinayaa noocuye idan tikraarkaasi tirada badan leh qofka uu dhibaa marka waxaad laga yaabaa inaad u baahan tahay mi'aat min almawaadiic inaad hesho aad diyaarin karto oo ku diyaarsan hadduu qofku mawduuca helo waxa kale aad bay u fududyihiin laakiin mawduuc ku munaasiba inaad hesho walidaalika buu sheekha maqaalkan qoraya wuxuu leeyahay waxaan xasuustaa buu yidhi ninka khatiibka ahi hadday khamiista ka soo gaadho buu yidhi isagoo weli aan garanaynin jimcaha berri wuxuu ka hadli doono habeenkaa ma gam'a buu yidhi aad buu isu rogrogaa waayo wuxuu garan laayahay buu leeyahay siduu xadidi lahaa wixii uu berri jeedin lahaa waxay tahay waxay leenahay mawaadiicda xadidideeda amthiluu bixiye amthiladiisa raacaya markaa wuxuu yidhi kow majaalka qur-aanka ku saabsan maadaama ay diinta waxaynu ka hadlaynaa qur-aanku waa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii waana kitaabu hidaaya waa kitaabkii loogu talagalay basharka oo dhan in lagu hanuuniyo saa daraaddeed waxaa dhici karta inuu qofku muxaadaraadkiisa ama dariskiisa si uu ku koobsado aaya waaxida min kitaab illah aw nisfi aaya laakiin aayaddaa nuskeedaasi uu jawaanib badan ka eego iyo dhinacyo badan مثلا waxaad soo qaadatay aayad barhkeed in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim ilaahay qoom ma bedelo ilaa ay bedelaan maxay waxa naftooda ku jira mooyaane idan waxa nafta ku jiriyo bedelideeda haddaad tidhaahda ka waran waxaa laga yaabaa inay wakti badan iyo mawaadiic badan iyo wakti badan qaadan karto laakiin cinwaanku waa nisfu aaya aayada dhanna maaha cinwaanka waxaa laga yaabaa inuu yahay maxay nisfu aaya waxaa la mida quraanka aayad badan oo noocaas baad helaysaa oo dariska aad jeedinayso mawduucu noqon kara oo haddii aayadaasi iyo shuraaxdeeda iyo mufasiriintu waxay ka qoreen aad u fiirsato iyo axaadiista ku soo aroortay iyo warka ka warramaya haddaad ku fiirsato laga yaabo inuu daris iyo 2 iyo 3 ba kugu filan karo waxa la mid ah aayad kale mesela wataqu yawman turja'una fihi ila Allah yawm al-qiyamah haddaad tirada ka warram waxa la mid ah watubu ila Allah jami'an ayuha al-mu'minun iyo aayadka la mid ah bulay waxa kale la mid ah mesela waa topic-kii baan rabaa saa topic u xadidi lahayd inaynu tilmaamno wuxuu yidhi sheekhu waxaa la mid ah inaad qaadato aayaad laakiin aayaad waxyaabo badan tiriya oo laga yaabo haddaad aayaad ka mid a qaadatid inaad jimco kasta ama daris kasta xabadi kugu filaan karto masalan waxaad qaadatay aayaadka ugu dambeeya suuratu furqaan ee maxay cibaadu raxmaanka ka warramaya wa cibaadu raxmaan aladiina yamshuuna cala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama haddaad aayaadka akhrido waa wasfi ilaahay uu sifaynaya addoomaha alle kuwa ay yihiin laakiin wasfi kastoo lagu sifeeyey wuxuu noqon karaa daris sidiisa u mustaqila waa wasfi mesela waxaa laga warramaya bulshada iyo siday ula dhaqmaan
waxaa laga warramaya habeenkii iyo siday alla ula xidhiidhaan waxaa laga warramaya waxbixintooda iyo infaaqooda iyo sadaqadooda iyo noocay tahay waxaa laga warramaya tawxiidkooda iyo alla siday u rumaysan yihiin waxaa laga warramaya inaanay zinaysan waxaa laga warramaya inaanay wax hadin yani haddaad mawduuc kasta gaarkiisa u qaada wuxuu noqon karaa maxay mawaadiic aada u tiro badan buu noqon karaa waxaa la mid ah مثلا آيات الوصايا في سورة الأنعام طبعا وصية يا كشرو انتو إلهي صوت حال لي ذلكم وصاكم به إلهي باتريد كل دار ما يمكن صادنا إلهي يتكلم قرآن يمكن لي ذلكم وصاكم به إلهي بايد كل دار ما وحي هذا المفسرة آيات الوصايا ويكشر الأنعام وحي كلو كشر محي إسراء هذا آيات كاسقة طعما أنعام وما إسراء قادتت ومواضيع محي aad ka warrami karto waqti aad u tiro badan leh waa idan ru'uus al-aqlaam ama meelihii muhiimka ah ayaa taaban lahayd ee deriskaaga aad ku salayn lahayd buu noqonaya waxa la mid ah mesela hadaad quraanka dib ugu noqoto qisas al-qur'an oo qaab tiro badan la u yimaada ima inaad anbiya ka warramayso oo nabi walba maalin aad ka qaadan karto oo waliba laga yaabo nabi walba 5-6 daris inaad ka qaadato مثلا نبي إبراهيم يا أبا النمضة الماء ودلي سو كوريه عدله وكجت جاي مال ودجاي وحى أبا يا إبراهيم السلام عليه وحلا جاي أبا أنا قاعدين كرتا إبراهيم يتوحيد كيسي يسود قوم كي ولا دقمي يوحو كيالي وحلا جاي أبا أنا قاعدين كرتا إبراهيم يا وقت جو حراديني وحلا جاي أبا أنا قاعدين كرتا إبراهيم يا آيات الصفات يا كيفيات كوحو كأركي ربي أرني أنظر إليك ربي أرني كيف تحيي الموتى waxa laga yaabaa inaad qaadan karto yani nabi ibraahim intaasoo qiso ibraahim iyo aabihiisa ula dhaqmay azar iyo wada hadalkii dhexmaray iyo wuxuu kula hadlay iyo idan qisaska ambiyadoo dhami waxay noqon karaan duruus waxa kale ku noqon karo ru'uus al-aqlaam aad qaadato qisaska umamka adigan xagga nabiga ka eegayna umada ka eegaya reer banu israa'iil mesela iyo waxyaabaha soo mareen ama qisaska kale quraanku ka warramayo mawaaqif go'an labadii ilma aadam oo kale ama reer banu israa'iil markii la yiri ard al-muqaddasa gal oo kale iyo wixii lamida waxa lamida inaad qaadato mesela quraanka iyo dumarka wuxuu ka sheegay waxa laga yaabaa mawduuc al-mar'a markaad qaadato waxa laga yaabaa inaad tiraahdo amalka shaqada amal al-mar'a ayaan ka warramaya amal al-mar'a haddaad eegto quraanku uu ka warramaya waxa laga yaabaa inaad hesho hooyo ilmo korinaysa iyo ilmaha korintiisa iyo waxaasoo quraanka meelo badan kaga jirta waxaa laga yaabaa inaad hesho inan wax basaasaysa oo quraanku jirta nabi muuse walaashii maxay hooyadii ku tiri qusi hawr soo eegag baa la yidhi dee inan baa basaasnimo loo diray dabeetana fabasurat can junub iyadoo soo daydaysa waxaa laga yaabaa inaad aragto gabadh shaqaynaysa labadii hablood ee shucayb dhale ee quraanku sheegayay maxaa la sheegayay xoolahooda inay waraabsanayeen caynkan iyo qaabkii ragga ula dhaqmayeen iyo iyagoo xoogsanaya haddana idan waxaan uga jeedaa mawduuca haddaad si ballaaran u eegto waxaad heli kartaa mar'o iyo quraanku wuxuu ka sheegay waxaa laga yaabaa quraanka inaad u fiirfiirsanin laakiin in 30 dumara ka badan buu quraanku ka warramaya 30 dumara qiso kasta maalin gaaraad ka warrami kartaa iyo waxa ay cagaa ku wadato qisadaasi markaad eegto mar gaar uu ka warramaya waxaa laga yaabaa inaad ka waranto masaalka waxaan u tilmaamaya yani waa inaan tilmaamo sidaad cinwaan u heli lahayd haddaad markaa qur'aanka dib uga noqoto saad cinwaan ugala soo bixi lahayd baynu tilmaamaynaa waxaa lamida majaalaad aada u tiro badan oo qur-aan ka mida iyaga meel kalean ku tilmaami doona waxa yimi xadiidka nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka nebiga axaadiis baad helaysaa ballaadhan gaar ahaan axaadiista 40 haddaad u fiirsato waa axaadiis aada u ghaniya waa axaadiis mid waliba muxaadaro iyo 2 iyo 3 ba u noqon karo مثلا حديث ابن عباس مشهور كهذا غاطه احفظ الله يحفظك وحديث أدرو كردي كرتو صدق حفر محاضرة كلا نوع كتشيدين كرتو أما سه حديث كواد أما الله حديث كواد إنما الأعمال بالنيات كورمية النيات كيو سيدا إسلام كوجا ورما النية والقصد ومسألة كثرة بالله حديث الله بابا حمل كرتا مثلا حديث كورمية أركان الإيمان كي أركان الإحسان كي محي هي أركان الإسلام ومواضيع لمدة
وحال لمده حديث كشيء يتقي الله حيثما كنت معاذ بن جبل يدردار كسي وحال لمده كوا أحاديث مثلا واحترساء النبي والتلمام مثلا 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله تضبع أي نبي الشيء ما أنت قيامة عرش الرحمن عرصده تضبع متكست معلن قارات كوربي كرتا شاب إلهي عابدي نين قبض زليستا قبض نين حالة دحمرتي إمام عادلة يعني عنوان كستاوح النقام كراميد عاد محي عاد مرقارة كورنته waxaa la mid ah xadiis sheegayay 5 inaad 5 ka horeysiiso waxaa la mid ah xadiis qisaskii nabiga ka soo arooray saddexdii god ku galay ama se waxaa la mid ah saddexdii kale indhoolihii iyo abraskii iyo kuwaasi oo kale ahad caynkaas wax ticdaadka samayso oo dhami iyana waa majaal waasica waxa uu yiri inuu qofku u qaadan karo topic inuu ka dhigto majaalka saddexaad لما مجال ما تلمامي سماها قرآن كأيساد مواضيع وقسم يسال أحاديث يساد مواضيع وقسم يسال أحاديث تأسمرك هذا الصحيحين كقرة أن اللؤلؤ والمرجان هذا قرة قاضته صحيحين كيس كده يقولنا متفق الصحيحين هذا قاضته وهذلك ارتمانك استبه هل حديث أو قرة أو ذكر كقرة كقفت لكن حديثكم مركز وحكى لقديس خضوا هذا مركز حديثكم سوكو بيشوف iyo markaad xadiis istidlaalayso xadiis qura markaad ku soo koobayso waxa laga yaabaa inaad ka waranto xadiiskan sababu nuzuulkiisi wadciga uu nabigu ku sugnaa sababtu xadiiskan uu yiri wixii uu tacliiqinayay ama wixii uu ka waramayay xadiiska raawiga warinaya iyo qisadu waxay xidhiidh la leeyihiin waxa laga yaabaa inaad ka waranto tarjumada saxaabiga xadiiska warinaya waxa laga yaabaa inaad ka waranto sixadiisa iyo ninka soo saaray iyo wuxuu ka waramayo waxa laga yaabaa tahliilka alfaada xadiiska inaad ka waranto يعني هل حديث واتكلم كرتا أو موضوع قرة المامية مجالك صدحات مثلا هدان شو قدبه قرآن يا حديث مركز كان مادنا هذا قام كرتا مجالك شخصية الإسلامية شخصية الإسلامية مثلا إن مسلسل سنة كسمش مثلا النبي محمد نذكر صلوات الله وسلامه عليه نبي جاي يد غريسي نبي جاي يد قاليه نمديسي نبي جاي هوانك يجور كيسي نبي صلوات الله وسلامه عليه يا وحب حنتيسي نبي يا عبادة ديسي نبي يا صوم كيسي نبي يا احترام كيسه نبي يا ومض حقه وكليه نبي يعني نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه واحد كيتش يدين كرتا عشرات المحاضرات وحل ده مواقف الصحابة هنا تلمامش أبي بكر يا مواقفتي واستاغي رجل نمديسي موقف الردة يالكو اسكتاغي عمر يا عدالة ديسي أما مامور كيسي علي يجيسي نمديسي علي يقاضي نمديسي مصعب يو دعوة ديسي يعني وحلا جاي الصحابة ده النبي هذا سيدا وقته صحابي ولي بو وحبكوا عام بحي وحبكوا عام بحي صحابة ذاك يسأل النبي وقلت المامين مستجاب الدعويين براء ابن مالك يدق الله دي وقال يدعى ديسي يوحو كدعين شري ما يشوف تاجنا وحلا من التابعين تي الرجال كي وويناي تاريخ الإسلامي قاهودا كصوب بلو مركا من رسول الله محمد صلوات الله والسلام عليه إلى يومنا هذا وحي علماء مسلمين مواقف لا يقانا استاغي العز بن عبد السلام إيما حي بنت بغر كي مسلمين تأيبي يعني هو موقف عجيبة العز بن عبد السلام يا مظالمته هلكو اسكتاغي إمام النووي يا مظالمته هلكو اسكتاغي إمام ابن التيمية هي مسألة صفات هلكو اسكتاغي وحلوة إمام أحمد بن حنبل هي يوم المحنة هلكو اسكتاغي يعني هذا التاريخ الإسلامي بعد عين وجالوت هي الرقيق خالد بن وليد هي دقالته وقال يا أما مواقفته استاغي هذا اسكوت بيضا إن وريكته في داخل الشخصيات الإسلامية هي ذا وحي نقوم كرتا مواضيع تربضا أو قفكو درسي كرا وحنا كجيدين كرا كأفراد ولي مجالة سانت الماما يا مناسبات كا وحلا من المناسبات التاريخية المناسبات كتاريخي هي دروس تلقى فائدة مثلا غزوات كي نبقى وقتية دعاء غزوة بدر إن أتكور رمضان رمضان تدبيت وكذا ما يلاسي وكلا دعدي أما فتح مكة ورمضان بلو جدي دعدي أما الإسراء والمعراج هي وقت يقول دعي أما يعني قصص تاريخ دي النبي صلوات الله وسلامه عليه هي غزوات كيسية وقتية دعين ومناسبات تاريخية وصون ونغضاء وبهن لغا ورما وحتى لها المالة
ninku markuu khatiib yahay dadka muslimiinta inta badan waxa xasuusiya munaasabaadka islaamiga ay kamid tahay مثلا xajka ay kamid tahay مثلا ramadaan ay kamid tahay مثلا ashhurul hurum ay kamid tahay yani munaasabaad baa jira soo noqnoqda ay kamid tahay taariikh al-hijriya markay dhamaato ama bilaabmayso ama wixii lamida munaasabaad baa jira markaas iyagu si daa'ima u soo noqnoqda ay kamid tahay ciidaha iyaguna dhamaantood waxay noqon karaan mawaadiic qofka muslimka ka warramo waxa lamida buu sheekhay leeyahay al-munaasabaat al-mahalliya buu yiri munaasabaadkan maxalliga wuxuu uga jeedaa hadiiba ay jirto buu leeyahay mujtamaca aad la nooshay waqti uu wax gaar ahmiyada siinayo inaad waxa ka warantid islaamku wuxuu ka qabo mesela wada kan joogna waxa laga yaabaa usbuuci mukhadaraat inay soo dhajiyaan dabeetana reklaamayaal iyo takhdiir iyo mukhadaraad iyo waxay ka waramaan maxaa diidaya buu leeyahay adiguna inaad mawduuc islaamka iyo mowqifka mukhadarka ka taagan iyo cilaajkiisa soo keenay iyo waxaasi aad ka warrami karto waxa lamida mesela yani munaasabaadkaasi soo noqnoqday umamku ay samaystaan iyaga laftooda waa wax noqon kara buu leeyahay in uu qofku ka warramo si uu loo dareensiyo mujtamaca noloshooda iyo islaamku say isugu xidhan yihiin waxa lamida al-ahdath al-aalamiya dhacdooyinka waaweyn ee dunida iska dinaya markay dhacaan dadka muslimiinta waa inay mowqif iska taagaan ama meel ka ahaadaan ama qaab u suureeyaan ama shariicadu waxay ka qabtaa ay tilmaamaan ahdaafta dhacdooyinka waaweyn ee gaar ahaan caalamul islaami raad ku leh ama ha ka warramo marka mowqif al-walaa wal baraa yani shariicadu waxayna bartay wax loo heeliyo iyo wax laga heeliyo laga bari noqdo waxa laga yaabaa dhacdooyin waaweyn inay dhacdo aad u aragto dulmi mesela ciraaq iyo duulimaadkeedu qofka muslimka inuu muujiyo inay tahay dulmi cad oo aan geedna loogu gaban oo ay kuwa xooga badan la isku dayaan dacfaa ilcaalam inay dulminayaan waxaa lamida ay dhacdo weyn oo dhacdooyinka waaweyn ee taariikhiga ee dunida ka dhaceed ka bedela waa majaal kale oo iyana laga warrami karo majaalaadka aan odhan karno mawaadiic baa laga abuuri karaa waxaa kamid ah majaal al-anzima al-islaamiya nidaamka islaamiga maxaan uga jeedaa مثلا إن ضدك أو شرحنا النظام السياسي في الإسلام شريعة إيو أما مدح الله دورنا هالنقطة أما مامل هالنقطة نظام القضاء في الإسلام شريعة إيو وحي كور رميسو قابك وحلو حكومة أما محكمة دور دعانا ما إجراءات كده وصعده مثلا أتكور رميسو إن إسلام كيا النظام الاجتماعي بالشدة إيو ذا ولا شيء هذا إيو شارك إيو حقوق ذا وسكولة هاي سلطان كإيو الرعية waxay xuquuq isku leeyihiin mujtamaca iyo social life kooda soo isugu xidhmayaan qof ka warramo waxa la mid ah inaad ka warrami karto mesela nidaam al-usra fi al-islam shariicada islaamiga iyo guriga sida uu dhisto aabaha waxa laga rabo hooyada waxa laga rabo ilmaha waxa laga rabo guriga iyo shuruudo ku dhisanayo talaaqa nikaaha waxa soo dhaw nidaam al-usra fi shariica al-islamiyya idan al-anzima al-islamiyya baynu leenahay أما قضاء شيء أما سياسة شيء أما أسرة شيء أما اجتماع شيء أما اقتصاد شيء أما ووحدة المامية مثلا النظام الاقتصادي في الإسلام أيات كورة مكرتا وحان موضوعية لبية صدحتونا هين أما البيعة أما وحال حلالية وحال حرام تنمية وحال لقوليين لقبع مشترية وحال لقوليين لقبع مشترية أصوش بيع ولي ربدا يسي ممنوع أوطي إسلام كي يدى قالها سيدو قيبية إسلام كي يدى حلقة إسلام كي يدى كسور قالها وقو قيبية يعني توزيع الثروة يسيدا يودعضه وحورنا وحي نغكر المواضيع أي نغكرنا هو في مجال الأنظمة الإسلامية وحي نغكرنا مواضيع نضوق وسطاء الأخلاق الإسلامي مثلا مواضيع قصاصا أخلاق ضغفك مسلم كه الصدق الكذب الأمانة الخيانة يعني وحل عليه وحي هذا كتب الأخلاق الإسلامية دي بقول نغطه واحد ليس الرؤوس تربضا وكور ربي سامحي أخلاق ذا يدغى كمسلم كه وحلم ده الموضوعات الإيمانية إن لقى ورمه أركان الإيمان يوحي لحل ما لا يكون حدا نوردا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله يوحي لحل ما لا نوردا إن لقى ورمه موضوع العقيدة نوردا ده إن سيسا لقى ورمه وحلم ده المواضيع الفقهية ومجتمعه هي مرار بدن وشيء صلاة هالنقطة صانية أحكامتها هالنقطة صانية وحي كبرتية وحي كو أصحدها هالنقطة إن
حجي وحكو بريه وحو يعني أحكام تفقه إسلامية بالشدة يوبا أنت ولي بقارها وقت يدا مناسبات مثلا رمضان بس يوقريس وها معروف فضلت كونو اسكي إلا بي أما هالمامي أنا رمضان تي وحي كو أسحي سي وحي كو بريسي وحي مفطراتك رمضان تي الله كعبسك يسي سكو حريين رمضان تي فوائد اللي جهليه يعني وقفك مسلم كيدتك وكبر أروتشيه وحل مدى الموضوعات الفكرية المنهجية موضوعات كفكرية عامك مثلا إسلامك يديمك لوحي كوك لقديسين الرسالة دا إسلامك ينحرس دا يطي الرسالة دا إسلامك وسطية سي مدى دحدحة وطهي الرسالة دا إسلامك سي عدالة وصليسان تهي الرسالة دا إسلامك سي الرحمة ينحرس بشر كوطي يعني مواضيع دا فكرية عامك يكو صافصان محي مناهجتا فكرية جودة إسلامية يكو صافصان وحل مدى مجالك الله بيطمنا أنت المام إنه الموضوعات التربوية والدعوية الدعوة الإسلامية ومواضيع ذا كصاب سلوك يساوح لوغا بدلية ناقنك يساوح لوغا بدلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما الدعوة إلى الله أما التربية أما فنون التربية المختلفة يساوح لو تربية يوحي لها المعنى waxaan soo sheegnay مثلا waa 12 majaal buu sheekhu tilmaamay laakiin majaal kasta in 10 iyo 20 mawduuc ka badan ayaa hoos gali kara taa macnaheedu waxa tiraahdaa 12 kaas min 20 qura hadaad hoos galiso bal min 10 mawduuc qura hadaad hoos galiso waa maxay waa 120 mawduuc idan waa 2 sanadood khudbadoodii ama 2 sanadood wixii aad jeedin lahayd ayaad mar qura qori kartaa kaasi waa qaabkii aad u heli lahayd ama cumuuman aad u baadi dooni lahayd inaad mawduuc hesho aad tarkiisiso markaad mawduuc qaadato sidee baad u helaysaa adiladiisii iyo wixii uu kaaga baahna maadada mawduuca saad u soo helaysa maadaama waxaynu ka warramaynaa ay shariico tahay maadada rasmiga uu u baahan yahay koow waa qur'aan laba waa xadiis صدح وسلف الأمة ومضي هراء تكتير صحابتي وتابعينتي وكدر فقهاء وويند مواقفته دي أما أرادوا دي فقه أن هدي واحدة يرادا لقدر يا أقوال يعني العلماء المعاصرين علماء هدي يقول بشرب الشدة يكوكل صنطة هاي قرن كستان نول وضبكوا يقانو هدي أي مواقف أما ترجيحات أما أراكوا ليهين مسألة هي صاد الراعين لهي حقا لقى بعد الدونية كو قرآن كايمي وصيلة أنو عليه والدور بضيه وأخرس ولما أخرس الآخرية من ألفه إلى يائه لا أخرية لسبب موضوع واحد محان كاوليه مثلا وحن ربا موضوع الصدق إلى كوربا أنا موضوع مضحك وهي دام قرآن كآخرية فاتح هذا كبلابه لما تنوضه مركز تو آيات موضوع حديد للي عمسيون سلالة ولا لا عن صوم مرة عن سكقره لما تنوضه إلا يبي رب الناس كقاري وحنا كأنه يهي من أحسن لقوه لك موضوع سيفي حدا وغير نرجي كرته أسباب بدن درادين كو عنوانك aad qaadato inta badan ama aayada quraan aad qaadanayso inteeda badan macna badan waxa uu sameeyay meesha ay ku jirto iyo sida ay u soo aroortay iyo qisada ka horeysa iyo ka dambaysa macna badan bay u sameeyaan waxay culimadu ku tilmaamaan al-munaasaba waxa laga yaabaa aayadu meesha ay dhacday oo quri inay ku kordhiso wax aanad ka fahamteen aayadaas oo qura hadii lagu iyadoo daliil lagu keeni lahaa aayaddu hadii lagu oran mawduuc caynkaas ilaahay yiri aayadaas oo qura arki lahayd daliilkeeda waxaanad ka fahamteen inaad ka fahmi lahayd hadaad akhrida aayaddu meesha ay ku jirto oo aad aragto qisada ay ku xiran tahay oo aad fahamto sababu nuzuulka ku ag wareegaysan iyo aayadkan sababta ku soo dageen oo aad garato aayadka ka horeeya waxay ka waramayaan oo aad garato aayadka dambeeya waxay ka waramayaan yani waxa macna sameynaya مثلا وامرهم شورى بينهم هذا soo qabato waa ayad sheegaysa dadka muslimiinta inay tala wadaag yeeshaan laakiin hadaad siyaaqay ku jirto ku eegto
وهذا أركان الإيمان كهرية يقوى كدبي وحي شيء جيسا معنى كجديسان إن هذا آيات أقول عركته إن آيات أقول يبيش دليلتي أحسن وسيلة أنو أركا وحويا موضوع حتى قاطير المصحف كآخره لكن طريقة واحد استعمالات ضدك تشعل تأنية سيدقن إنه وحب عراه ضدك تشعل وأنا طريقة أن سلايا هاي وكفي عن طرق كلا أردن أو شخصيا ويوحى إلى ذلك لوحى اللمدة إن الموضوع بكل جوانبه كأركي كرته بكل جوانبه إن كأركي كرته هذا دقدق الربطه وده 3 أما 4 مرة تجمعنا ولا بسوقية وأنا لقيا بينها كجارسين كارين إن المصحف كي وضع آخره أحسن طريقة الله مرئك عليه وحويا إن استعماشه مراجع إسلامية كو waxaan ugu horeysiinayaa marjacan loo yaqaano المعجم المفهرس لألفاظ القرآن كتابك المعجم المفهرس لألفاظ القرآن كتابك كان هو فهرسة وحويان شيء وسيدة ديكشنري الله قري يعني معجم كديكشنري وقابك قرآن يوكل له سميه فنك كان علماء المسلمين انت بدنا هرم استعماله شيء ولذلك علماء المسلمين تبادني انت بدني وحفاظ بابي هان جيرين قرآن كوي هان جيرين ميدا كلا دوي ممارسين يعني waxa markaad in badan la dhaqanto waxa fudud saad soo qaban karta markiiba laakiin faniga kan waa min hasanat almustashriqin nimanka mustashriqiinta la yiraahdo reer Yurubkii diinta islaamiga isku dayay inay bartaan sababtay doonaan ha u bartaan ama inuu taxriifiyo ha u barto أما مسلمين تيسيد الله بصاصية وزارة الخارجية وزارة المستعمرات إنه كثر سنة هو برتو أما موضوع علمي يوني هو برتو أما حق رادس الدين هو برتو وحدوني هو برتو كوحدة مستشرقين طلعين هذا وكوحدي غير قلبات باري تشرتي ديمها هي اللغات كدتك غير برية إنها مثل المستشرقين تاع الصومال وكويباي هاي اندروسكي اللوسي وحسب ما مغشان ما يين برخيري ينمكي برني نفس الصومالية يعني دان إنجليز بيجو برانيين فرصابة هاي إنجليز هو وضع كلا كياني تذكر سيد الله معمول لها إنجليز عقلية تقف كالصومالي سيدو فهم لها سيد الله بصاص كار لها ووركو ده يعني وزارة ذي كتير صناعية تسوى إذا بتنا وسكوت شامين هنا واحد كانوا برتان لكن والله جاي بينا كنا اللغة ده وحي قرقرين وحنا يرفع إيديه ما تكسر تكل ويكسر كرديين وحي هاي لغة ده وقبهني إذن أتل كبوج كتاب كان وحال أورنجري مركي هو نجوم الفرقان في أطراف القرآن وحانا قري مستشرق ألمانيا فلوجل أورنجري فلوجل نين ليدا هذا مستشرق ألمانيا بقري أول طبعة وحال طابعة يكون سداد بقولي يلا بيا فرتنكي المستشرقات ألمانيا هي وحي صار حلقة إنه كتاب كقرآن أنتو قاضه دبتنا وتحليلية الفاديسة كذبنا وعليا أصوشي اللغوي هيد اللغة العربية وسوشيا دوام حي وثلاثي يعني أف عربي كلمة كستاف عربي صدح عربي كتمي وثلاثي صدح عربي كأصلا صدح دا عربي وحلقوش يدل البني إنه سوشي ثلاثي قاوه عليه دبتنا آيات كقرآنية وحكو شروردان إنه سوشي هاستيهوست كيانو والددالي الذي يقول في عنابه سمي أخطاء سمية يودي مدام أنه اللغة دولة الشيء أما اللغة سفي عنه قرنية وها بعض الأخطاء وكل عين نبكى لنا وكوي رد عضيو آيات كي أرقامتي وحا وحققات مصحف أيقو طابعدين ويسوقوا هيستوان هين كان منتشر كا مركات طبعات عنكو تن عادي يلا طابعي ميدان هين بو هيستي وعلي بيتش نمبر سي وحاسي عن قوق روح بدنين الأركينين دبتنا الشيخ الله إلى محمد فؤاد عبد الباغي رحمة الله عليه وفهرسة الدقل المسلمين توقف في عنا كم دها أيها كتاب كنيكا كدبت سوق هذا طبعا يستندود بودي markuu dhameeyay buu culamo muslimiin oo kale u bandhigay kadib wixii akhtaa oo dhan baa la isla raajacay waxaan oran karaa waa ahsan kitaabka harasa hadda laga qoro kitaabkani muxuu taraya ay mawduuc aad qaadatay mesela mawduuc الصدق baynu dhameyn ka waramayna الصدق في اللغة العربية muxuu ka yimi صدقة samaha waxaynu baarina kalimatu sadaqa sidii dictionary uu qoran yahay sidii dictionary xarfaha looga baari jiray ayaad uga baaraysaa waad rogtay صاد باتكتي
صاد بين تجني ساد دال قاف واكن صدق أينو بلا بينه واكن صدق موقوه الرئيسة وحشيقيا أريق صدق أفر ميلود بكسار أفر أيضا نوعاسة فصدقتها صارت يستغل وح الله لي وحي لفظ قال لها المالة أي وضع إلى أيو وكرم بين أيو أما مسترها كنت ما دمركها أما اسمها كنت ما أما فعلها كنت ما أما صرف جدا كدون توجدي وحي صاد يدال يقاف أي كتشرانة أصوشو ذا يكمديهين أي قرية محان هلا يا مركها وحان هلا يا لفظ صدق يوحي قرآن بك كسو أروري لفظك الصدق يوحي قرآن بك كسو أروري تاسي waxay fudaydinaysaa kow marka koowaad inaan soo helo oo soo qori karo aayaadka quraana ee sidqi ku soo arooran laakiin markasta ogsano adiga lagaaga baahan inaad aqli ballaadnaato aqli ballaadnidaadu waxay keenaysaa inaad garato sidaad wax u tabwiibin karayso mesela waxa laga yaabaa sadaqa hadaad qaadato marka koowaad waxa maskaxdaada ku soo arooray koowaad inuu noqdo sidqiga carabka saxanka maaha laakiin sidqigu carabka quru ka yimaada الصدق في النيات بعد كرتين وشرو صدق الأقوال بعد كرتين وشرو صدق في الاعتقاد والأفكار بعد كرتين وشرو أنت مرة قرآن كوكا ورمي أداء لقى جنبه هي آيات كقرآن أنا تبوي بسمر كاسك لقاط قادد وهذا أبواب السمايسان كرتين يقاب كوسا مثلا واحد ربطا موضوع العلم نتكور رنطه لا ما وحي كوسابسان أردن أي كوسو أرورينية وحي كوسابسان لفظ قاس أردن markuu soo ururiyo lafdiga oo dhan adaa lagaaga baahan inaad category u samaysid oo kala qaybisid oo sidii aad wax u abwaabin lahayd mesela cilmiga iyo fadligiisa hadaad ka waramayso cilmiga iyo wuxuu keena hadaad ka waramayso cilmiga iyo xataa cid haysata mesela markaad soo marto kalbigi ilaahay ku tilmaamay inuu yahay muallim kalbigi wax la baray muxuu sheegayaa inuu cilmigu xataa eeyga inuu kor u qaado إذن ومسألة موضوع دنكو نقن كرتا واحد كستو علمي قال حتى أين هالنقضة إنه صاحب الشرف نقن كرامة مال سيرو قاري إذن أدا لقى الربا نصوص القرآن موضوع أكو صاحب السنة دور دن مركز هشو قاب كادو تبويبين لهي أدا لقى الدونية وحا كار راعة ولفظي كفتو مفرد الراعة وهلك كان هذا آيات قرآن أون إري كحسوسته يا أيها الذين آمنوا اتقوا هداد قرميس وهذا انتي كلا قرم ويدو وهذا آمنوا باتكو بارك كرتا اتقوا باتكو بارك كرتا أي لفظ آيات كم إذا باتكو بارك كرتا هدادون آيات قرآن ونو كالون تيع ديسو وسيدي ديكشنريون لفظ كم إذا انت تساقب وطمد ايجيتا تبتنا وحكو سيني وحكو لي سورة رقم كذا آية رقم كذا ويا مرها واحد وبا عنتو نراد مصحف كلا ركتو وهذا يكتا آيات دي يميشا يكو شفتو waxaan kan ku raacinaya markaad halka aad joogto waxa jira marka mawduuc la baarayo aad lafdi ku baarayso laba shay waa laga fakaraa taraadufka waa laga fakaraa tadaadkana waa laga fakaraa taraadufku waxa weeyaan lafdigan iyo kuwa kale la macnaa waxa laga yaabaa sakiina inaad baarayso xasilooni laakiin tumaaniinana waa la macnay إذا أن السكينة قرأ هذا صوب طود سأي كافيا نون قرأ كبار السكينة قرأ سهلة لكن واحد أبغى أنت تراد في كذي هنا أرجع هرت وحكم معنا للدوم كذا هذا صاه شو أرجع الله معنا طبعاً يوحي لما ده صاه شو إذا أنا كبار آيات كيف في درسة وحين أنت الراعة وحين هذا أنت بدل وبضدها تتبين الأشياء هذه يقول أشياء ده وحكوا عادات محي عكس كذا إذن waxa laga yaabaa inaad raadiso kelmadda cagsigeeduna inuu wax badan oo kala ku taro oo markaad sidqisaad u baadhisay hadaad kadbina eegto waxa laga yaabaa inaad hesho kuwa aqwaasha ku been sheega kuwa niyada ka been sheega kuwa aqeedada ka been sheega kuwa waxbay ku kordhinaysaa mawduucaaga waad ku rakibi kartaa ama qaab baad ugu xidhiidhin kartaa idan markaad lafdi wax ku baadhiso waa inaad baadhaa inta badan mawduuca aad rabto wixii keenayo dhan waxa intan dheer waxa kaloo jira kitaab kaloo la yiraahdo tafsiil ayat al-ahkam isagana waa mufaharasa kale isagana mustashriq kala qoray asalkiis waxa qoray mustashriq la oran jiray Jolafon waa mustashriq isna faransiya laakiin isagana waxa dib u tahdiibiyay oo dib u qoray isla sheekha kan Muhammad Fuad Abdul Baqi
وحكى كلا لا تفصيل آيات القرآن الحكيم تفصيل آيات القرآن الحكيم ما تيجوا الرئيس كنت قال بقول يا لاتني أفرتي ملها صلاة طبعا وملاينية بس ملها سوى وقت الشيخ كل تبتنا مراجعة مدة كتيرة شن يصدق في ملها صلاة طبعا وملاينية كان يوحو كجد سيء كيهره وحو قرية هي مواضيع إيش جاي يسكت دينه كحلقة هذا حلقة مثلا موضوع هذا الرأس الموضوع هيسته آيات كينو أروريتنا حلقة بقى الأمانة إنك كيف كريسه يسقون بعض بارسة أمانة سأدوها ليس قاب في ديكشنري قادو مرسة يسقونها عناوين في وحو قري فهرتدو دي محي سيدي ديكشنري همزة كبلو باكو حكسي تاكو حكسي ساسي مركا أمانة همزة كبلو بطا ما بعد هيجي مركا تمادو موضوع أمانة بعد من موضوع الأمانة واحد هو تلي تايوكو قران محي آيات كي قرآن موضوع كصا أرورنا لكن بدنا وكسونو لفظك هي موضوع مكوبان مرنبا موضوع وحلو استدلالية موضوع وحلو استدلالية وحي كلو كحرنتهي استنباط كشخصي قف أوليه علماء دبرت بالله يا بينا تركتو آيات أنا تدقوا سلاحين موضوع عم بحديد بالله لا يدي waxaan arkay nin caalim oo u daliishanaya saddex in wax lagu furo wama ma yanfa'u an-nas fayamkutu fil ardi u daliishanaya aduu labada inaad weligaas ku xidhaan baa laga yaabaa ayada wama ma yanfa'u an-nas fayamkutu fil ardi iyo mawduuc ku saabsan talaaq thalath inaad ku xidhaan baa laga yaabaa taa waxaan uga jeedaa waxaad isaga baahantahay inaad mar kasta si caqli ballaaran leed u fakari kartid waxa laga yaabaa mawduuc kasta aad doonayso inaad qol wala istidlaali karto لكن وهذا هاي محي تعرف كيف تستنبط هذا تفي عنه قرن ثقافك وحلو استدلاله إذا قل هو الله أحد واحد بدل بلو دليشن كره لكن واحد يكون حرمت هذا هي مقدرة هذا محي استدلالك إيضا واحد كنت مادة ما ها وحي شو دقيقة واحد كاني واحد كنت مادة كثرة الممارسة وحن هذا عاوة بالأوضان وحن مريني عاوة ممكن ندرس كده ما إنه رقم إيش شغلني موضوع وقع لسان نقول لي أنا موضوع تصوتي هرنية هبكي سنة كواه الله قرية وشيء دونه إذا ممارسة حدي لباديو مركز دمو فضودان سوا حكاني يعني أدك وقف فضودان سيرد وحكم فهم كتابك كلا شيء مركز يسوي حكم كورك جدي يسوي حويا ومواضيع إيه نصوص دي موضوع أكو صافي سنة أكو هاسقران أحكي له كذا كتاب صدحات وسنة المام دون القرآن ككمدة ومعجم ألفاظ القرآن معجم ألفاظ القرآن سجى وحا قري مجمع اللغة العربية هي آدم وين علماء بدن ومسلمين يسوتجي طبعا يلحس النضاد بقرآن كي سقاطي انت لبحتني يلا رجعني لجو عليني يسوون ألفاظ كقرينه يعني كلمات بكو سلسلة أصوشكم مثلا يستنا يعني كلمة حكو صلا يستنا الأصول الثلاثة يعني ذهب بعض قاضان ذهب مركا يذهبون يوحى صار من كانوا بس كوسي منيا أما كانوا يحكوا سميتي ألفاظ لفظ كاستاسيدي سيو قرية إيو مواضيع ده وحكوا لو كسلتي كان يوكو في عين هاي مثلا وحلا جاي أبا همزة نقبل أبا ده بتاني الهمزة في اللغة استفهام بالله استعمالها ده بتاني إنه كتسي قرآن كأنت ما يلاده استفهام وقصارت إنه كل هذا اللي وحصل الله استعماله للإنكار بالله استعماله في اللغة دبتنا وكتصير قرآن كله كإنكار وصار طولا إذن وقاب كسي تخصص بدن قاب كأيكوا كانوا قريه يسقونه وقام في عكرة أقام في عكرة دانت كوا وين هيستنين مصحف يرى قرآن أشترى ولا بفهر صير يرى حاجة دم خله أو مطبوع أو ملهن سكير يلا لما تفهر شيء ولا مدواكن فهر سدي سوكله حويا كلمة كستا قرآن كقول شرطة ما شيء يكون هذا من نوع فهرسة موضوعية ومثلا وحقوق يا آدم ده تنا وحقوق شيء يا آدم يقصدي سو أنت ما لا قرآن كقطع الله أما وح قصة أراري قصة آدم أي ملك وكينية خاصنا أدبكوا في عدونا قرآن كهدان أنت أكو كوبا أنا وحنا دري طريقة وجو أنا قد دور بدا وحويان الآخرية ده موضوع الرباين المصحف كان يقول موضوع أيها هيستا أن نسكت ضيان الآخرية وطريقة وقفي عن النصوص طردن حشرين كرتون لكن ده واحد كان لم سيرين أدقو سوتش ده عقلك وقضايا موضوع عاد هيستي وآخرين أيام مركز القرآن هذا التاسك وقعد كاتو إن استعماشه
kutubtatan gaar ahaan kitaabka kani aad ayuu mufiid u yahay waxa yimi axaadiista xagaan uga doonaya mawduuciisa la garanay quraan inaad soo hesho horta mawduuc quraankiisa la soo helay geeysan bay ila tahay saxiixa ma aha mawduuca dad quraan u soo hesho iyo diladiisi waxaan filayaa inuu ka dhan yahay waxa yimi wixii ku saabsanaa axaadiista nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiista waxaa laga yaabaa salaad horta misati rubac hadhay axaadiista kutubta ugu barakada badan leh ee muslimiintu ugu jeceshay ee ilaahay barakeeyey waxaa kamid a kitaab dadku wada yaqaano le riyaad saalixiin waxay yidhahdaan kitaabka quraan dabadi waa kitaabka ugu daabacaad badan baa la yidhahdaa caalam islaami marka laga reebo musxafka bay yidhaahdaan kitaabka ugu badan ee kale matbuuc ee meesha tagtaba aad helaysaa waa riyaad saalixiin riyaad saalixiin wallahu xasiibu imaamu nawowi baa qoray oo kamida ragga ay culamada muslimiinta aadka ugu tuhmaan inuu ikhlaas badnaa awliyada ah ayaa la yidhaha qalinkiisa la yidhan jiray baa la yidhaha soomaydan maqal hebel qalinkiisa la yeeshaa nawowi waxay tilmaamaan culamaa taariikh in qalinkiisu ifi jiray xataa in aada u alla ka cabsi badan buu ahaa 24 saacadood hal mar uu wax cuni jiray markaana dadka kale waxooda ma cuni jiray wajbad hooyadii uu keentaa buu cuni jiray intuu noolaana cilmi buu ka shaqaynayay ma guursan xaas ma yeelan waxba kale ma qaban 40 jir buu ku dhintay laakiin 40 kaasi wuxuu ka tagay maktabada islaamiga nuskeed ma min fannin funuun islaamiga kamida la yaktubu kulli wa xukamid rijaalka mujtahidiinta ah bal ay culimadu yiraahdaan mujtahid mutlaq darajadeedu uu gaadhay waxaanu kamid yahay ragga fi kulli funuun ragga ku aha يعني وانين محدثة وحديث يسوي تخريجية وسنة كودة كورمة وانين كتب الجرح والتعديل كتب كله والرجاشة كورمة وانين فقيها وفقه كورمة وانين رنتي خير بضنبوها إمام النووي رحمة الله عليه وحكم دي الرجع إلهي كتبتي سبركي والله يابا وقتك استضد ضدنا أما الله علمي أما الله النوع أما الله كتبين الشيرين لكن ضدكوا إخلاص كيسكم قاعدة midna ilaahay kelmadiisa waa barakeeya mesela muslimiinta waxa laga yaabaa inay kun kitaab mala ku dhawaan karaan waxa 40 la qoray haddana kaan nawawi ba dadku wada sidaa 40 nawawi kaan nawawi ba la sidaa idan waa in ilaahay kutubtiisa uu barakeeyay kitaabkiisa riyaad saalixiin ka la yiraahdo waxay culimadu yiraahdaan waa min ahsani ma kutiba fi baabihi ba yiraahdaan baabkiisa waa kutubta ugu fiican laga qoray وكتاب جامع بين هذا وعلم السلوك هذا ضربت ينقن يا أخلاق يسوي كوبي آداب هذا ضربت يسوي كوبي هذا ضربت بين هذا فضائل الأعمال يصون يصلاة يحج صدقات يوحل ما يسويها هذا ضربت بين هذا المناهي يوحل الريب محرمات يسجد كهلسة هذا ضربت بين هذا عقيدة يوحكو صافصين نصوص تخصو عرفت يسجد كهلسة وكتاب جامع بين هذا في كل الأبواب إذن رياض الصالحين وكتبت حديثك أغفي عن بوكميديا وغفضت قف كستا طالب العلم بغيدي سوكيه لكرا ومثل لو حيدا حديث انت بدن وحقاط حديث جامع بين هذا والله يا باب كستا وقري انتو قري لبلاب كده حديث ان تسهليسو لكن واحد هذا اسكو مد ما حديث خبير كو دوريو حديث نكلا اسكو سو قرر اسكو مد ما ولذلك أبواب أحاديث باب كسارتين أنت يسدح تاجي أيو أنت أقول بدن لم يعدوا قاضي كوحلا جيابا أما الروايات دي أقول ديري أما أقول في عيني أما الفاظ كلا جديسم كسارتي يعني نك محدث كي مركو روايات الحديث كلا دورنا يحيى بدن اللي دور تاجره صحة قرا معها يعني صحة وكلية لو ما دورت حديث waxa lagu doortaa siday u kala balaadayeen waxa lagu doortaa alfaada ku soo kala aroreen waxa lagu doortaa cilalka culimadu wax ku maagaan iyo sidoo uga nabad galay waxa lagu doortaa raawiga xadiiska wada iyo ku yahay waxa lagu doortaa wax badan baa lagu doortaa sadaradeed riyaadus saalihiin waa kitaab runtii mu'ah oo sheegaya ahadiis bal aayad badan oo quraan mawduuc kasta oo bilaabana sheegaya in sha Allah ahadiisuna inta badan aanay kaaga baahnayn takhriij kale يعني علماء لود وحن تبنيه لا تبنيه هي ما لقطة
waliba ragii ugu tashadudka badnaa Albani iyo ragii la yiraahdo tadciifka waa ragga ugu adag waxaan labaataneye ahayn bay qabteen inta kale insha Allah ta'ala waa xadiis maxay wada saxday wuxuu kale ku fiican yahay Riyad Salihin xadiistiisa dhame waa maczu waa maxay wuxuu ku sheegay xadiiska cidda soo aroorisay mar hadduu ku sheegay ciddi soo aroorisay waxa fududaanaysa inaad ku noqoto maxay كتب الشراح الحديث يعني رواه البخاري رواه مسلم رواه مركو إلى رواه البخاري مركا حدا هذا كسر دقيقة أنا حافظ كشرح سين هليس حافظ كونه صار نقلنا يا أقوال وحي علماء كه الرئيسنا يتري أي قوة المامان حافظ كونه قاموس السنة قاعدة عن علماء وقاموس كالسنة اللي قبل يبين عن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ساد ردد عزو يعني إن عزو وإن حديث كعدي سوري سي loo saaro wuxuu fudaydinayaa inaad takhriijkiisana uu ku fudaado ama sharxiisana uu ku fudaado haddaad isla hesho markaa riyaadu saalixiin iyo musxafka quraan iyo kutubtaasi tilmaamaysa waxa intaa ku dharinta badan waxa weeyaan xadiisii iyo waad haysaa iyo aayaadkiiba inaad ugu noqoto shuraaxdiide aayaadka quraan kullayba kama maarantid inaad tafaasiirta ku noqotid وبلايد أيه واحد تفاصيل تكشف في آيات كي أطلاق عضتي هنا ذاكته كما ما رنتي حديث كي يشرح ده حي كشجع كتاب كلا شيخ هل كان إنه وقدس الراعي إنه تلمامي وحويان كتاب أنا نلقى يلقى روح بدنين لكن سيقول حلي والتاج الجامع للأصول وكتاب كتاج كالله يقرأ وكتاب كالله بعد علماء الصومال أنت بدنا نخرج شرتي تاج وكتاب قرين أزهرية تضبط صنع مالها سقرية بالله ينهضه تبويب كيسوا في عين قابه تبويبيه لكن متى حادث يسموه كلا صار شن كتابه كأرورية وحي حادث كصارري بخاري مسلم أبو داود ترمذي يا نسائي شن تسبه كأرورية ساد ردد ما دام أبو داود ترمذي يا نسائي بيقول شرنا حادث بدن وده صحة ودو علماء ضاي تضعيف ساعة ما يقفتين بكل حشرة أنا هل بدون بنكوش شيء أنا هذا تاج أو بهنت هاي وأن تصوف وحاجة كرميسان سادر أديت باب كان إن بدن تقريرات في سوسة أدبو استدلاله مركز هذا متمكن هين سكبت دابا كون الله بديل كيس إنه هينا ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمة الله عليه أما هداد مصابيح السنة ويدو مصابيح كي الخطيب التبريزي كوكسي صاري ومحيا مشكات كان وحا وكفي عيني وحا تخريجيين محي شيخ الألباني رحمة الله عليه إذا واحد كله ليس ضعيف كيسي صحيح حسن كيسي شيخ الألباني بقى صغري وحيسنا كم ميديا هي كتابة وقفي عن أبوابته أنت الجمع السيء بدن اسكد يا حديث أبوابته قصة أرطوردن إنه كو أرورية وحكى الله إسنا كتاب في عنه تكون نقن كرتا كتبت الجامعة بمثل مامينا حانت المامي ده رجعان ولي صحيحين كي يقوى دكم من كورمية ماشي إني بلا واحد بينه كورمية كتبت كلا باب كاكو جمعين سنة وحكم ده ترغيب كي ترهيبك للإمام المنذري رحمة الله عليه وكتاب ضفي عن ولبا ننك قريسون ونن ناقده وحنا هذا هو من أعرف العلماء في علم الخلاف بالله دو مسألة خلاف كذا الشيء قبل هذا منذري تعتمد عليه وعلماء أقو أقام بدن بالله هذا إن رأي الفقهاء نقلنته ذا يوركو ذا إن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه يساقنا وكتب أكتين نطالة إن وحا سنة الله سعودة إنه هي تخريج شيء محي شيخ الألباني رحمة الله عليه مركز صحيح سي حسن كيسبا سنة وثالثة انت هداد اسكو درسته وانا الميل فوق قوانين ترغيبك مشكاتك يا رياض الصالحين انت سي وحن رنكرا 70 أو 80% واحد حديث وقبا هنايد واتكيه ليس 70 أو 80% أبوابتها دورته واحد حديث وقبا هنايد واتكيه ليس وحين تقول راعة وحويا دينة شراح دي دبغوا نقطه waxa raaca hadii aqwaal الصحابه iyo kuwa aduba talaba kitaabo waaweyn baa jira inta ugu badan loo dadku ihtimaadaan labada kitaab inta badan waxa laga yaabaa inay maktabaadkeena iyo meelaha noolin inkastoo imka matbuuc labadaba yihiin wa musannaf ibn abi shayba
iyo kii cabdirasaaq waa laba kitaab oo min dhowr iyo 10 majaladooda minoo 15 minoo 18 majaladood waa laba kitaab oo la yiraahdo aqwaal الصحابه iyo madaahib السلف waa labada kitaab ugu tirada badan la soo arooriya hadii ay taabiciin iyo saxaaba iyo cidii la nooca aqwaashooda aad raadinayso laakiin waa laba kitaab oo yana u baahan in la takhriijiyo waliba culimada fanniga ku fiican ay takhriijiyaan waayo waa bisanadihim qowlku inuu ibn Abbas ka sugnaaday ama inaanu ka sugnaanin wuxuu u baahan yahay in maxay in la takhriijiyo buu u baahan yahay markay tahay aqwaal ulama iyo wixii la halmaalada kutub shuraax ba ka helaysa ama kutubta hadiyo gool aqwaal salafka soo naqlisa sida sunna ibn abi al-Asim oo kale kitab al-Ajuri الشريعة كتاب كيلو ريتشر وكله أما حياة الصحابة كتاب كلا إلى هذا وكله وأصلا نقلنا إياه إن كستور دمان تودين بدن وكم إذا يتخرجوا بهاي كتب تقابن أقوال السلف إن بدن قرنتي جامع العلوم كان يربع كم إذا شرح أيام حي 40 النووي من عبد البر حافظ كي بيرندلس إن كو قريبة كم إذا هذه الكتب أنت بدن واحد كهلي دون تام حي أقوال العلماء لكن أقوال العلماء يلو حقوق سوكوبية هذا المسألة ده هشو أدلة دي قرآن كاهي يا حديثي ما شاء الله أقول نقضايا كم معروف وحويا شراح الكتب دينا تكون نقط حديث البخاري وريي واحد كبار يساوي شرحي سامحي يعني ابن حجر كي ترمذي وريي أحوذي يوحي للنوعة كابي داود وريي معالم السنن يوحي للنوعة يعني كتبت الشراح ده سنن كشرح دي عادي أيضا تقول نقونسة أقوال العلماء أما الرجال كهداد مواقفته وضربته سير كبعض باركة أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء لحافظ ذهبي يعد اللمدة هديها أن يركون راعيه بعد ذلك ارتاع كتب كله يعني انت أنا كتبتك كله وجود بين مسألة يربكون راعينية أحلى جيابة مظن الحديث منك أن فنك متمرس كقوها وكوا عدكت حديث كه شيء إنه ترمذي وريه هلكو ترمذي كجيا له حلقة يا باينه هو اللي بدأته حاجة كيكتو حاجة كيكتو أما كتبته أقول لي بدن أحاديث اللي جاب بخاري كمده ولذلك ما وحل أركي حديث البخاري كنت على علماء وين وضع كحكم طيب هو بخاري كياله يعني هو كسواي أما من كرانه إلى حديث كاتب ما تشير هذا بخاري كياله ويا إمام البخاري كتاب كيسه ومو قرين بيرادة زي محدثين تو قرآن وحو قري سن فقيها يعني كان يستنبط حديث كوانو قري لكن وحو قري محي عنوان انتو قرطو ترجمة أي حديث كوهوس قري محل الاستشهاد كون بانو انت بدن كو قري waxa laga yaabaa hal xadiis markaas oo 20 meelood u googooyay inaad hesho xadiiska aad ugu raadinaysay gobol yar inuu kitaab ruudo ku dhex yaalo oo ahkaamta siyaamka marka laga warramayo dacal kaga yaalo oo kitaabu shahaadaad in yaraad kaga aragto oo isla xadiiskii oo qura ah waxa laga yaabaa inuu riwaayad adeegsado kala gadisan oo mar riwaayadan ku soo arooriyo adigoo xadiidkaad wadatay ibn Abbas baa laga yaabaa inaad xaga ka hesho isaga Abu Hurayra ku arooriyo oo nin kale ku soo arooriyay latifa sanad ku jirta ama sababo badan sadaraad min as'ab al-kutub hadith laga helo waxa kamid ah Bukhari laakiin waxa kale oo lamid ah mesela waxa laga yaabaa inaad xadiis soo heshay darajadu si xadiis inaad weyday kutubtii Albani inaad garan weyday meel aad kaga bilowdo صحيحات وكل حجرة ده حاجات صحيحة وجاها هذا النمبر كيه هيني ضعيفات وكتير مكان بكتير هذا حاجة جرو ويده لكن وحنا سيتركز فضوض أو علم قال ما أنت عصبة وحقادوا استعمال عشان سيرجن جينيسك يعني إنترنت هوا قبنوية خير قبنوية وهو حلو أديك سده إنترنتكم ما أنت هو مكتبة وجوين عالم كله أديك سده أي فن أديك سده نمباحثه ما أنت وحقرأ كمر ما متشرو أكبر مكتبة في العالم بأنا كشرتها مكتبات كلها كاله في كونغرس كشرتها يعني www. أنت قرطاء جلسة سيدي سيدية بلا يدو instruction كيديله مركز قيبت كواد بقى شال وش يجي قاف كادو بارا يسويه library كان سوق لسنية هي سوق كذا كيف سنية هي سات research كذا سوي كرت يوحى قدام بقى يجا بكو شرحية هذا مركز ننعى دونس وأنا أكبر مكتبة في العالم كونغرس كمراكز تيسا تبدو قوي وهي قلادة وحكم تيكو تلقى لأنني هو قوم بطان دونيدا مطيدعين waxa markaa haboon hadii aad rabto
أي حديث ما أنت وفدودي إن تصاهشه لبس سببات بوفدودي وفدودي إن تخريج كي تصاهشه هذا الإنترنت كجشه ومثلا محدثات قشه أما جامع الحديث قشه أما تخريجات الألباني قشه أما الدرر السنية قشه وحن شيء يودم ويب سايت all this websites ما الغلا يكون الشراء ما هو شيء sultan.org/Arabic sultan.org ولينكس ويب سايت اسمه كو قرانا يسوي حبا شيء كلام شيء يعني وحو أورورياون ويب سايت كإسلامي كشرا هذا تكتا أبواب تيس علمي واحد هلا يسكونا شيء يودن هذا تكون متكمل إذا كله فطه تخريجات الألباني بس كله فطه sultan.org انت تكتي أما المنبر.net انت تقشي أي تخريجات الألباني كله فطه حديث يا دون شيء أري أما الله ما أما صدق كم إذا تقولي ماشي تنبأ بعض هذا سيرش نشينكو عبار مركام غناضة وصار نقولنا وحبوا كورن دوناون حديث كان لحمة لود بشيخ الألباني كقري كتاب كيسا مشكات كهالك سوكا جيا الله إن صحيح هذا نهالك سوكا جيا الله من البداية لك سوكا جيا الله من البداية لك سوكا جيا الله وحنا وقف حكومة وحكوا سينا الصفحة دي كيدي كان ضمنته كله في كتاب كي بتجي سامركها كان كله فطي صحيح هذه بتجي صحيح هذا وحكوا شيء كان كله فوق مشكات كي وحكوا هالك هذا أنت مكتبة تمادون ولا الله يدور تلو حديث كان حكي لك صاحلا وحكى في المركز هذا محدثة حديث كاذب باهت هذا تخريج كرامات يعني هو باهني دين دين بدل دوخته وهذا باهنت أنت هالك تكتير كله فطه وحلا ميدا ما أنت وحلا جاب إلى جريم ويدور حديث كان ابن حجر هالكوك شرحي بخاري بعد بكسوي ده مشارح ابن حجر بتسوي له ساعة ابن حجر لفتيسه حديث كي طبعا كملود لو جوجي مال كم يدو شرحه انت كلنا ويا حاليا اما هو كبوده لكن حديث ما صبر يسوي وحبك مو شيء مال كانت كورك وحبك مو شيء شو حلقه جايب كتاب الشهادات مركو مره يوصي شرحه حديثكم مركا حقه هره كو سو شرحي مر دبه كو سو علين مايو وقول له واني ميل بلاي كو سو شرحه وكتغي سيتا سايف فضوداته waxa tagi maktabadka islaamiga mid kamida fathul baariga sala sabaxi fathul baariga dhexdiisa ka search garee fathul baariga dhexdiisa markaad ka search gareyso wuxuu ku sheegay xadiidkan inta meelada uu fathi kaga yaalo iyo sharaxdii uu sheekhu ka qoray intaas uma goosan kartaa marka akhri kartaa halka xadiis iyo wuxuu sheekhu ka sheegay oo dhan ayaad isku ururin kartaa iyo tagi kartaa idan waxaan leenahay search engine-skani waxay fudaydiyeen maada kasta aad u baahato inaad heli karto dhanka qaarkood way adkeeyeen baabay yiraahdaan masaa'ilka qaarkood oo waxay yiraahdaan cilmigu yaraantiisuna waa dhib bay yiraahdaan badnidiisuna waa dhib bay yiraahdaan yani waxa laga yaabaa inaad lafdu qaad ku qorto google-ka aad dabeetana tiraahdo search oo dirto oo ku yiraahdo 130,000 oo meelood baan ka soo helay xagaad raaci telegram 130,000 baan laga soo helay yani tira badnidu waxbay dhiftaa haddii aanad adigu si fiican u garanaynin xagaad u socotay laakiin markay tahay axaadiista in intan adigu khayr baad kaga dhargisa saadaradeed waxaan leeyahay in kutub al-atraf baa jira oo culimadeena hore qortay oo ah xadiidka taraf kamida un hadaad xasuusato tuhfat al-ashraf iyo kale ibn hajar ama kii qolada ka sii horeysay qortay mizi ama waa kutub هذا طرف الحديث كاسيون مركز هالشيء يسوي كل شيء حديث كماله كوسا أروري ماله كياله لكن هذا كوا ويدو سيرج إنجين كاجا كوجو فلانه مالهم كم إذا ويب سايت كإسلامي جارها كوا ويتك أما جوجل كعادي جاتك أما واحد قشة sultan.org Arabic مركز قشة حاجة وقص الرئيسة أنت بدر يدكم مختصرات دي مفكرات وما قشانه واحد بدك واسمه الشيء يعني واحد قشة بواحثته كيكو غرانتي بواحثته وحويان إسلامك ويب سايتس كتشيره وين لا يقانو سيرش انجينيس كودا يرير بو سو ururiyo meel qura isugu wada keenay marka lafdi quraan aan sito مثلا موضوع الصدق باتته waxaan tagay صفحة البواحث صفحة البواحث marka aan tago waxa laga yaabaa in konton baabo kala nooc inay ku qorantay yani konton link oo kala gedisan website konton kaba waan ku dhajinaya paste baan leeyahay konton kaba waan u diraya wuxuu isoo siin karaa asid wax kitaabo caalam islaami laga qoro net ku jira haday jiraan kutubtii oo dhan way taxaya wax muhaadaro oo laga jeediyay haday jiraan muhaadaraadkii oo dhan way taxaya
wax maqaalo laga qoray haday jirto maqaaladii oo dhan way taxaya wax kutubtii hore iyo maraajicdii hore ku jirto dhan haday jiraan way taxaya inta hadda shabaab muxaadaray kareen midris akhri kareen yani mawduuc sidka markaa tagtay haddii aad search engine ka qura garanaysid oo aad intaad ku dhadhirjiso markaas aad tiraahdo baadidon aad tiraahdo wuxuu ku siinaya wixii oo dhan midalan waxa laga yaabaa inaad u baahdo marka hadii mid la yiraahdo kitaab akhri karimo warwada akhri karaysa saado akhri karaysa waxaan ku leeyahay internetka agoon tag midalan islamway.com hadda tagto 30,000 oo ajladood ba ku jira 30,000 lectures ba ku jira 30,000 lectures ka midalan waxa kamid ah intii ugu badnayd wixii uu akhriyay midalan ibn Uthaymin kitaab uu akhriyay oo dhan ibn Uthaymin Bukhari uu akhriyay Ajrumi uu akhriyay Alfi uu akhriyay Aqid uu akhriyay wixii uu daraasad ka meeshiisa ka dhigi jiro dhan kutubtoodii waa ku jira hadii lagu yiraahdo Ajrumiyaha dadka u dhig tago ibn Uthaymin inta ka soo dhageysatay miyaad gudbin karaynin hadda wax kale oo badan garan weydo inta soo dhageysato maanta miyaad aduguna caawa gudbin karaynin mujarrad درسي isaga akhrinaya arday buu leeyahay akhri ardaygii waa akhrinaya hatta alfaada luqada baa la saxaya sida kitaabka uu inaan uu ku gafin ka kordhi ka hoos dhigtada wada ka harakaysa kitaabkaaga hadaad doonayso sheekhu sidoo akhriyay kadibna sharaxa dhageyso waa wax ka fudud idan waxaan uga jeedaa hadaad internet in yar uun isticmaali karaysid maanta fanni aanad baran karin ma jirto sheekh masaajidkan uu baahan ma jiree raggan halkan wada fadhiyo dhimo culumo caawa laga bilaabo idan waa inaan la oran ramadaantii sheekh baa la deydey iyo sheekh baa la baadi doonayay waayo haddaad search engine ka uun iyo sida looga faa'iideysto qura aad fahmi karayso waxaad helaysaa mawduuc kasto aad u baahan tahay wixii maqaal laga qoray wixii kutub laga qoray wixii kitaab laga qoray waxa laga yaabaa kutubta ku jirta inay ka badan tahay maktabad kasto maanta meel ku taalo aad tagto maktabad kasto meel ka alaabto inta kadib mas'ala ba kugu dabarogantay sheekhu sidii uu sharxay baad fahmi weyday ama kitaabku sidii ay ugu taalay sidii bariga hore sheekhaga hore kugu soo akhriyay baad yara khilaaftay nin walba waxba isaga yara guntan ka waxa laga yaabaa kale sidii uu akhriyay iyo sidii wadaadkii hore kugu soo mariyay inay yara khilaafaan maxaad samayn kartaa laba halba waad samayn kartaa inaad muntadayaadka tagto website kasta muntadu leeyahay muntadu waa forumska wax loo yaqaan muntadahaasi مثلا ahlu tafsiirku muntaday leeyihiin ahlu tafsiir waxa markaa muntadaha ku jira ragga طلابul cilmiga ee cilmiga tafsiirka ku takhasusay ama baxsiya ama kutub ka baadha ama masaa'il baadha ama aayado wax kasta ka baadhan ayaa ku jira iyaga ugu qoraysa un fadlan masalada caynka cidii wax laga qoray haysa ay soo gudbi baribood helaysa jawaabta iyadoo muntadihi ku jirto ama haday jirto wax kitaabo masalada xalilaya baad leeyahay fadlan ii soo gudbiya waxa lagu leeyahay ibn Hajar waa ka kitaabkiisa hebel la yiraahdo masalada halka ku sharxay muqniguna waa ka halka ku sharxay labada ugu noqo madaanti baa lagu siinaya aad masalada ka helay ama waxa lagu leeyahay risaale cilmiya jaamiciyo hebel qoray baa jira maalin dhow baanu soo guurinaa anaga kugu soo dhijinayna meesha beesug idan muntadaha hadaad gasho si caadiya hadaanad muntadaha galin ee aad website ka linkiska u qura jooga aad gasho meel baa jirta ay ku qoran tahay culimada maanta mucaasiriinta inta ugu badan la email-ladooda dhan direct weydii masalada inta qorato waxa tira sheekh masalada caynkaas taasi say soo waafaqayaan ama masalada maxaa laga sheegay waa direct email markaas isaga ka sug jawaabtiisa inuu ku soo diro idan waxa leeyahay hadii aad in yar u isticmaali karayso internet maanta maraajic uma baahnid waxa kale oo inta dheer hadaad haysato kuwan electronics kaana yani CD-yadan iyo waxa laga yaabaa CD yar $100 soo siisatay oo 3,000 oo kitaab ku jiraan inaad helayso hal CD ama 3 CD yar wada socda oo ay ku jiraan 3,000 oo kitaab 3,000 oo kitaab hadda 3,000 oo majalladood ma aha waa 3,000 oo kitaab waxa laga yaabaa kitaab waliba inuu noqdo maxay 15 majallo 18 majallo 19 majallo inuu noqdo waxaana laga yaabaa waliba search engine ama search directory yar iyo wax yar inay la socdaan oo aad ku sii dhaxbaari karto 3,000 oo kitaab oo hal CD hadaad internet xataa gurigaaga aanu lahayn waxa kugu filan maxay hal CD yar oo aad ka duubato hadii kale meelaha iyagoo bilaash ah lagu soo duubo muntadayaadka ha noqdo ama maktabaadka ha noqdaan waxa laga yaabaa website kasta inuu maktabad leeyahay maktabad maqruu'a
iyo mid masmuuca inuu labadaba leeyahay mid kitaabadiya iyo mid culamo akhrinayso ta akhriska iskaba dhaaf waqti badan bay kaa rabtaa laakiin kuwan maqruuca dee waad download unde waxaad doontaad download garaysan kartaa meel ku urursan kartaa haddaad kitaab dhigayso ama fanna dhigayso ajrumiye haddaad dhigayso gal internetka ajrumiye wixii laga qoray ama laga sheegay oo dhan soo download garayso maalma intaad doonayso caalim misri iyo mid yamani iyo mid soomaaliyaba waad helaysaa oo ajrumiye sharxaya intaba waad soo helaysaa idan waxaa fudud waxaan leeyahay markaa nin oslo maanta jooga oo wadaada oo af carabi yar qorqori karaya oo quraan iyo xadiis akhri karaya aan wax jeedin karaynin ma jiro wanis yeelyeelayo nima sheekh noqon karaynin ma jire dee nacsinimada la iska dayo dadka waxa loo sheego waxa aan tilmaamayo waxa weeyaan bal techniques in aan idin tilmaamo baalka internetkuna inuu buuxo عموما فكرتي عام كي تقانينا سيسي سما لكتر ما وحاسد الله قرأ هديت هاي وحين نقول استعمالنا القرآن يا حديث يا أقوال العلماء توين الشيخنا ماليه لقنا قرنها فقاوح الرجينا يا نولو بينات حرصة ما يسطوه علم هنا النظريات كوحبكم معها يعني يمكن حلقة بين الويسلو ده فهمنا وحاسد قرناي لكن براكتيكال كوحوغا صعوبات بسكليه ما دام الصعوبات اللي ممارسة كاغباهي يعني waxa laga yaabaa imka inaynu ruusul aqlaam fi odan isla fahamnay aad garan karto sad mawduuca oo diyaarin kar lahayd laakiin tijaabi ha ku daynin sida tan markasto aad tijaabiso aad wado oo aad daris cusub dhigto war cid kale aad ku barataan hada weydaan islaamiyina ku barta maalin walba islaamka daris u jeedi waa islaamiyi ma nusaysan naadan baa haysan islaamiyada waxa uu sheegay baa soo haysan maalin kasta daris u jeedi abay kasta hal daris u dhig وعلى الأقل أدوه أدوه حاجة كبارة رئيسه مركا وحان ويتشي un xerna la waayi maayo cid wax kaa dhegaysata dee uun in wax la tijaabiyo inaad xataa adigu qorato oo adigu aad ka barato waxaan diyaarsataa aday ku anfacaysaa idan waxaan leenahay wadaadku wuxuu kaloo sii sheegay haddii loo baahan yahay gabayo iyo meelihii gabayga laga baadhi lahaa idinku dee gabay carbeedna u baadhi maysaan gabay soomaalina malaa cid badan ma garan mayse إنها سينسكت كوبينا والله أعلم بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله